daawadayaal ku soo dhawaada saxafi films oo aad ka dhigaataan barnaamijyada aynu kaga hadalno arrimaha Bollywoodka ee dalkaasi Hindiya. Barnaamijkan waxaynu kaga hadlaynaa jilaaga caanka ee reer India superstarka Mithun Chakraborty wiilkiisa Mahak Shai oo lagu soo eedeeyay loona haysto dacwad ah in uu actor-kan da'da yari uu kufsaday qiyaaneeyay gabar ka tirsan gabdhaha filimaanta ka sameeya dalkaasi Hindiya gaar ahaan Bengali Film Industries. haddaba gabadhan amaba haweeneydan ku soo eedeysay Mahak Shai in uu qiyaanay oo uu kufsaday waa ay qarisay magaceeda waxaana ay sheegtay inaysan u baahnayn in meediyaha loo gudbiyo magaceeda. haweeneydan ayaa waxay ku eedeynaysaa Mahak Shai oo ah wiilka curadka ee uu dhalay jilaaga caanka ee Mithun Chakraborty oo ka mid ahaa aktaradii soo caanbaxay bilowgii 80-aadkii kana mid ahaa aktaradii loogu jeclaa marka ay noqoto aktarada Bollywoodka ka soo galay koonfurta dalkaasi Hindiya gaar ahaan Bengali Film Industries. waxa ayna sheegtay in eedeyntaasi aysan isaga kaliya waa Mahak Shai aysan u jeedinaynin oo ay eedeynta xitaa qiyaanadaasi ay ku lug lahayd isaga hooyadiis Yogita Pali. waxa ay tiri labadooduba waa ay khiyaaneen oo waxa ay igu sameeyeen bay tiri waxaanan qof dumar loo quurin. haddaba waxaa la sheegayaa in ay sheegtay in uu xiriir kala dhaxeeyay laga soo bilaabo sanadku markuu ahaa 2015. waxa ay tiri waxaa naga dhaxaysay wada noolaasho ha yeeshee wada noolaashahaasi ma ahayn mid aan iska ogolaaday ee waxaa jiray heshiis uu ogaabay tiri Mahak Shai oo ahaa in aakhirkii wada noolaashahani uu ku soo gabagaboobay tiri in aan isguursano. isaga hooyadiisa Yogita xitaa arrintan waa ay ka warqabtay xiriirka naga dhaxeeya aniga iyo wiilkeeda Mahak Shai. waxa ay tiri ugu dambayna waxa ay labadooduba go'aansadeen in ay meel cidla igaga tagaan. sidaas daraadeed waxa ay dacwad ka gudbisay dacwadana waxa ay u bedeshay kufsi. waxa ay tiri mar haddii qofka dabinka lagu soo galiyay bay tiri ballanqaad beena oo sidii la doono laga yeela waxa ay u dhigan tahay in qasab lagaga qaaday oo ballantiina looga baxay. waxa ay tiri maxkamadda ayaan ka sugayaa labadoodaba. haddaba dacwadan ay gudbinayso gabadhan magaceeda qarisay ayaa markay dacwadda geysay maxkamadda laga aqbalay waxaana la sugayaa in sida ugu dhaqsiyaha badan la soo hortaago Mahak Shai maxkamadda laguna qaado kiiskan ah in uu gabadhaasi qiyaanay oo been u sheegay muddo gaaraysa 4 sanana uu xiriir la lahaa wada noolaashaha oo waliba xiriirkaasi ay maxkamaddu ku tilmaantay xiriir dhanka jirka amaba jinsiga waxa loo yaqaano. haddaba haddaynu soo qaadano taariikhda wiilkan da'da yar ee Mahak Shai waxaa dhalay jilaaga caanka ee Mithun Chakraborty waxa uuna ku soo biiray dhanka shirkadda filimada sameysay ee Bollywoodka sanadku markuu ahaa 2008 isagoo waqtigaasi watay amaba la soo shirtagay filimka Jimmy ha yeeshee dadka filimada falanqeeya waa uu ka gadmi waayay. ugu dambayna waxa uu noqday actor ku follow garoobay in uu ku soo biiro kana mid noqdo aktarada shirkadda Bollywoodka. haatanna dacwadan ayaaba loo haystaa oo gabar inuu xuquuqdeedii iyo xaqeedii intaba ku tuntay maxkamadduna waa ay sugaysaa sida ugu dhaqsiyaha badanna maxkamadda ayaa la soo taagi doonaa ha yeeshee dadka magaca leh amaba aktarada caanka ah wiilasha ay dhalaan ma ahan kii ugu horreeyay oo dhacdo nooca kan oo kala sameeya. ugu dambayna waxa ay ku gabagabowdaa dadka falanqeeya arrimaha Bollywoodka in dacwad amaba damaanad lagu soo sii daayo kiiskaasina uu noqdo mid iska daba dheeraada ugu dambayna ay lacag bixiyaan oo wiilkooda ay dambiga loo haysta amaba eedeymaha dusha laga saaray ay ka badbaadsadaan. haddaba daawadayaal waynu arki doonaa halka uu ku dambeeyo Mahak Shai Mithun Chakraborty wiilkiisa iyo dacwadan loo haysto oo dhanka jinsiga gabar in uu khiyaaniyay isaga iyo hooyadiisba. halka aad ka daawanaysaan barnaamijka waa saxafi films oo alaaba idiin soo gudbisa barnaamijyada ugu xiisaha badan ee arrimaha Bollywoodka. inagoo isku duuban oo baahda saxafina waxaynu idin leenahay barnaamijkan aad daawanaysaan like saara kadibna subscribe ku qabta saxafi films ugu dambayna taabta gambareelka si barnaamijyada ka baxa saxafi ay joogto kugu noqdaan. fikirka aad qabtidna waxaad nagula wadaagi kartaa qaybta commentiska ee isla saxafi films. inagoo isku duuban oo baahda saxafina barnaamijkan barnaamij lamid inta aynu ku kulmayno dhammaanteenba waxaynu idinkaga tegaynaa daawadayaal sidaa iyo nabadgelyo.